kulan wacan meel walba caalamka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena wararka isha sirdoonka iyo siyaasadda. Qodobada aad ku daawan doontaana waxaa kamid ah dawladda Shiinaha oo sii daysay 8 askari oo kamid ah kuwa Hindi ay ku soo qabteen dagaal labada ciidan dhex maray. Toogasho ka dhacday dalka New Zealand. Shirkadda Facebook oo tirtirtay xayeysiin uu leeyahay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Qodobada iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan. U diyaar garow barnaamijka fidsan. Dawladda Shiinaha ayaa dib u sii daysay askari iyo saraakiil ay ku qabteen dagaal dhex maray ciidamada dawladda Shiinaha iyo kuwa Hindiya. Askartan ayaa waxa ay gaaraysay 8 askari oo laba kamid ay yihiin saraakiil sarsare oo hogaaminayay dagaalka dhex maray labada dal. Horaantii toddobaadkan ay ahayd markii ciidamada kala taabacsan labada dhinac ay ku dagaalameen xadka ay wadaagaan labada dal, waxaana la sheegay in ay ku dhinteen 20 askari oo kamid ah ciidamada Hindiya. Sii deynta ayaa salka ku haysa kadib wadahadal ay galeen dalal aan la shaacin magacyadooda balse xiriir wanaagsan la leh labada dhinac. Hindiya iyo Shiinaha ayaana isku haysta dooxada Galwan ee ku taala xadka labada dal tan iyo 1972 waana dagaalkii ugu dhimashada badnaa muddo 45 sanadood oo dhex mara labada dhinac. Dalalka Hindiya iyo Shiinaha ayaana doonaya in xaaladda la qaraabiyo oo lagu dhameeyo mid diblomaasiyadeed. Waa tahay iminkana dalka Mareykanka Facebook oo hawada ka saartay xayeysiin loo sameeyay ololaha doorashada madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Facebook ayaa hawada ka saartay xayeysiin la xiriirta ololaha doorashada ee madaxweynaha Trump. Xayeysiintaas oo ay ka soo muuqatay calaamadii Naaziyiinta Jarmalka ay adeegsan jireen oo saddex geesoodka ah. Calaamada ay shirkaddu sheegtay in ay tahay mid looga soo horjeedo kooxaha garabka bidix oo Trump uu qaswadayaal ku tilmaamay dhawaan. Kooxda ololaha doorashada Trump ayaana sheegay in ujeedka ay u adeegsadeen calaamadaasi ay ahayd mid ay uga soo horjeedeen kooxda. Hase yeeshee Facebook ayaa sheegtay in xayeysiintaasi ay ka soo horjeedo siyaasadaha ka dhanka ah nacaybka ee u degsan shirkadda Facebook. Madaxweyne Trump ayaa dhawaan ku eedeeyay kooxda Antifa in ay ka dambeeyeen rabshadihii ka dhacay dalka Mareykanka. Rabshadahaas oo ka dhashay dilka nin boolis ah oo u geystay nin Afrikaan Amerikaan ah oo lagu magacaabi jiray George Floyd. Ururka Antifa ayaa ah dhaqdhaqaaq ay siyaasadiisu diidan tahay Naaziyiinta iyo qolyaha cadaannimada ay ku weyn tahay, waana koox abaabulan oo aan lahayn hogaamiye la ogyahay. Trump ayaa bishii hore sheegay in kooxdaasi uu aqoonsan doono urur argagixiso ah oo ka jira gudaha Mareykanka, balse khubarada dhanka sharciga ayaa su'aal geliyay awoodda madaxweynaha u leeyahay tallaabadaasi. Waa tahay iminkana New Zealand. Hal askari oo ka tirsan ciidamada booliiska dalka New Zealand ayaa ku dhintay halka mid kalena dhaawac halis ah uu ka soo gaaray kadib markii ay rasaas fureen koox la sheegay in ay ahaayeen burcad. Falkan ayaa dhacay kadib markii ciidamada bileysku ay isku dayeen in ay baaraan baabuur ay lahaayeen koox burcad ah, kadibna ay kooxdii bilaabeen in ay toogtaan askariga dhintay. Halka midka kale uu dhaawac ka soo gaaray kadib markii ay rasaastu haleeshay. Howlgal kooban oo ay sameeyeen booliiska dalkaasi ayaa waxa ay sheegeen in ay 2 ruux ku soo qabteen maadaama guryaha ay ka heleen hub sharci darro ah sida ay sheegeen laamaha amniga. Booliiska dalkaasi New Zealand ayaan weli shaacin in kooxda falkaasi ay geysatay ay ahaayeen koox burcad ah iyo in kale. Wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Soomaaliya Xamse Saciid Xamse ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay diyaarisay hab dhismeedka xarunta shaqaalaha ka howlgali lahaa iyo khubaro tababar joogto ah siin lahaa shaqaalaha xaruntan. Wasiir Xamse ayaa waxa uu sheegay in xogta la xiriirta dhammaan halis wadareedka oo ay horay u bixin jireen hay'ado iyo xaruuno aan dawli ahayn ay hadda wixii ka dambeeya la heli doono xarun qaran. Diyaarinta iyo hirgelinta xarunta kaliya kuma saabsana degdeg cusub oo la helay, hase yeeshee waxay tallaabo loo qaaday xoojinta madaxbannaanida iyo qarannimada Soomaaliya. Aniga oo adeegsanaya xaruntan waxaan awood u yeelan doonaa in aniga gacanta ku hayo xogta cimilada iyo macluumaadka la xiriira dalka, ayaa uu yiri Wasiir Xamse. Wasiirku hadalkiisa sii watay waxa uu sheegay in saameynta xaruntan ay ka mid tahay guulaha sii xoojinaya madaxbannaanida Soomaaliya si la mid ah soo celinta maamulka hawada Soomaaliya oo muddo dheer kadib ku soo noqday gacanta dawladda Soomaaliyeed. sidoo kale wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo kamid ahaa mas'uulintii booqday xaruntan cusub ayaa bogaadiyay arinta isaga oo ku tilmaamay in ay tani kamid tahay guulaha ay gaartay dawladda Soomaaliya iyo shacabkuba ay gaareen. wasiiru dawladda arrimaha dibadda Imaaraadka Carabta Anwar Qarqaash ayaa dhaliil kala dul dhacay
Khalifa Haftar kadib dhowr guuldaro oo xiriir ah oo ay geysteen ciidamada GNA sida uu ku dhigan warbaahinta Bloomberg oo laga leeyahay dalka Mareykanka. Bloomberg ayaana qoraysa in Qarqaash uu madal online ahayd ka sheegay in qaar ka mid ah asxaabta Abu Dhabi ay qaateen go'aan u gaar ah isaga oo ula jeeda Yemen, Liibiya oo uu Haftar keligii isaga dhaqaaqay sida uu hadalka u dhigay. go'aanadan kaliya waxay keeneen khalad waa go'aamo aanad mararka qaar haysanin talada saaxiibada ayaa uu yiri. Qarqaash ayaa sheegay in Imaaraadka ay taageerayaan hindisaha ama mu'aamarada Masar iyo guddoonka baarlamaanka ee bariga Liibiya Saalax Al-Aqili oo ah ninka ay doonayaan inay ku bedelaan Haftar sida uu faahfaahiyay. Qarqaash ayaa sidoo kale Turkiga ku cambaariyay taageerada dawladda la aqoonsan yahay ee GNA isagoona sheegay in Turkigu hadda yahay dalka qura ee diidan xabad joojinta dalkaasi ka hirgasha taasoo ku fasirmaysa qiritaanka ku aadan in laga adkaaday dagaalka Liibiya. Waxaa xusid mudan in Haftar oo ay aad u maalgeliyeen Imaaraadka iyo dalal kale uu ahaa ninkii bilo ka hor diidana in la wada hadlo isaga oo xitaa diiday in uu dagaalka joojiyo inta lagu guda jiro bisha Ramadaan ee barakaysan balse kadib waxaa bilowday dagaal aad u qaraara kaasoo ay ciidamada dawladda Liibiya kaga saareen deegaano badan oo hogaamiyaha Afgambidoonka ah Khalifa Haftar horey gacanta ugu hayay. Masar ayaa sidoo kale bari dhaweyd Imaaraadka ku eedeysay in keligii uu go'aan ka qaatay arrimaha Liibiya taasoo keentay guuldarrada Khalifa Haftar.